بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد بن عبد الله نبي الهدى والرحمة وآله وصحبه وسلم. Al-risaalah Madarasah Mission Statement: to provide a real class environment, teaching and management of the highest quality, and deliver more educational value to our students that earns both theirs and their parents' respect and loyalty in an innovative way that utilizes both latest curriculums and technology. Al-risaalah Madarasah Vision Statement: producing students of an Islamic attachment, are aware and have respect for the rights of all, are able to live with those surrounding them equipped with a correct Islamic understanding, and are aiming to achieve their potentials in life with ability to positively affect their atmosphere. أهدافتا dugsiga ama madarasada al-risaala: raaligelinta allah iyo kasoo bixidda mas-uuliyadda naga saaran faafinta fartiintiisa, in ardayda lagu baro qur'aanka oo tajwiid leh, sidoo kalena farbarka qoraal iyo akhris labadaba, in ardayda la baro caqiidada saxda ah iyo akhlaaqda toosan ee islaamka, in ardayda la baro ahamiyadda salaada iyo gudashadeeda, in ardayda la baro oo lagu baraarujiyo xuquuqda allah, tan waalidka iyo tan dadka gaal iyo muslim intaba, in ardayda loo helo bay-ad waxbarasho iyo tarbiyo toosan si loo xoojiyo koridda maskaxdooda, in macallimiinta la siiyo tababaro kor loogu qaadayo khibradooda iyo xirfadooda, in waalidka lagu caawiyo in ay ka qayb qaataan madarasadana ka caawiyaan in carruurtoodu ay gaarto yoolka ugu sarreeya ee ay ka gaari karaan madarasada al-risaalah, in maamul, macallin iyo waalidba loo wada shaqeeyo si wada jir ah oo iskaashi leh. Our services: we believe that all our students deserve the best we can provide. Empowered by Islamic principles, we set off the quality of education our students and parents can expect from us. We go through challenges with understanding and together with all involved. We utilize today's technology as much as we can, from administration through classwork and communication. Students' abilities, age and gender are taken into account while setting targets up. Al-risaalah Madarasah has been built upon a strong structure that consists of 1. Policies. Policies for students, policies for teachers, policies for parents, classes as well as administration. 2. Educational curriculum for each of basic skills, Qur'an and Islamic studies. 3. Set targets for each of basic skills, Qur'an and Islamic studies. We are inspired by the Prophet's sayings, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, as well as كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. The structure of the Al-risaalah Madarasah. Ardayda cusub ayaa soo gasha. Assessment ayaa lagu sameeyaa heerka uu ardaygaasi ka joogo waxbarashada. Kadibna waxaa lagu meeleeyaa fasalka ku habboon ee dugsiga ay waalidkood doorteen. Haddii aan u boos ka jirinin, waxaa lagu wargeliyaa inay na sugaan inta aan uga helayno ardaygaasi boos munaasab ku ah. Fasallada farbarka ee ugu horeeya waxaa laga rabaa marka uu ardaygu ku jiro fasalladaasi in uu ardaygu si degdeg ah ugu dhawaaqi karo, una akhriyi karo, una qori karo xuruufta iyo kelimadaha kooban ee luqadda carabiga amaba qur'aanka, isaga oo weliba hikaadin kara. Markuu soo gudbo fasallada dhexe, waxaa loo sii wadaa farbarkoodii ay ku siyaadinayeen wax akhriska, waxaana loo dhexgeliyaa oo loogu bilaabaa qur'aanka. waxaa kaloo loo bilaabaa cashar lagu magacaabo kitaabka akhris, oo isagu mar walba ka horeeya casharka qur'aanka ah ee caadiga ah.
markii uu ardaygaasi si dhab ah oo xirfad leh uu u maamulo heerkiisaas oo si fiican u akhrisan karo casharkiisa ayaa loo gudbiyaa mid ka mid ah labada fasal ee ku xiga heerka ugu dambeeya. labadaas fasal oo wiilal iyo gabdho u kala saaran ayaa mar walba waxaa laga rabaa ardaygu in uu casharka ugu koreeyo ee uu qaadan karo uu ka qaato, awooddiisa ugu sarraysana uu isticmaalo. ardaygii muujiya inuu si aad iyo aad u isticmaalayo wakhtigiisa iyo awooddiisa intaba waxaa kor loogu dhigaa oo loo dallacsiiyaa fasallada ugu sarreeya oo ah fasallada qur'aanka lagu dhammeeyo, halkaas oo loogu gooyo inta safxo laga rabo usbuucii in ay ka soo baxaan. We hope that we have given you enough information about the madrasa, and we welcome you, if you have not already joined the madrasa, with open hands. soo dhawaada gacmo furan waa madrasadini. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.